ربحنا كل فنا كدي من حبض الأمر كل فنا وهذا ركتان مرحوم كسو تاجن أيو قارتي وصور رأسنا وهكذا مرك حبض وكنت الله قرب كي كجد عيا حبض كي كبعي badankooda eedeysanayaasha caadiyanba waa isbedelaan marka ay joogto dhacdooyinka ay ka dhashaan faldambiyeedyada si gaar ah kuwa natiijadooda ay ku soo dhamaato dilka waxaase weli meesheedii si kastoo loo dhalan rago marag mandootada qarsoon ee CCTV dable booliiska Axmed Cabdi Jimcaale Black waxaa loo haystaa toogasho bareer oo u geystay maalin uu qaadireysnaa dilaaga marxuum ex booliiska Maxamed Xuseen Yuusuf 12kii bishii 2024 waana u qiran inuu gacantiisa ku baxay marxuumka balse ma qabo inuu ka sahaa dilka dhacay anoo meesha ka shaqeeya wadada baar hay dhaaf meesha qoriga garab kala baxmaayo anoo qofno la murmin qofno la dagaalin meesha goobtii shaqada joog qoriga daal la baxan hal baa loo taa ka dhacay saas wax u dhacay ani qofna dil isdeemeen nool walaalkaana dil isdeemeen qadar biyayna abad baxsadana dishninkaas walaalkay محد لي حبدا iga fakad حبدا ka fakatad xafiiska xiraalinta oo dilkan uu aqoonsaday mid kas ah ayaa garsoorka u soo bandhigay cadeemo kala duwan oo ay ku xoojinayaan doodooda ah kasnimada dilka ayna ugu weyn tahay muuqaal laga helay kaamirada CCTV ee ku xirnaa afisyooni degmada Xamar Jajab waxaana goobta kula sugan oo qaybta shishe joogo oo marka dambe imaan doono ninka la yiraahdo Cali oo marqaatiga hadda aan keenay waa kuwa labada isla saaran mootada hadda yimaadeen mootooyinka saasay u marayaan xaggaas ku soo celinaya markuu dajiyo kadib uu soo celiyo kadib haddana xabad uu ka dabarida uu soo celinaya waa ka marxuumka rabaxana ku dhufanaa kadibna xabadda dhabarka kaga dhufanaa waad aragtaan marxuumka isoo taagan ayuu qoortii soo raacsana waa ka marka xabadda ku taallaa garabkay kaga dhacay xabadkay kaga baxay Cali waa qofka la hadlaya haddeertaan uu leeyahay waa kaas qofkii la socday haddeertaan Ibrahim ayaa banaanka wuxuu ka soo ordaya gadaal oo la socday imaamadii u xirneed madaxa oo garabka kaga xiraa sababta waa aragtaan wax gurmad iyo wax oo macnaha uu u fidinay ma jirto baabuurtaas uu saari kara awood u leeyahay uu gurmadi kara xataa daqnasho xataa ma laha inuu yimaado dad kale oo shacab ayaa qaadayo waad aragtaan waa la soo socodsiinaya qofkay soo dhaxbad ku taalo meeshaas ayuu waa ka la wado afgambi macnaha awoodii dhiigiya gudaha u shamaa waa ka muraayadii ku dhacayo darbiga waxa ku dhagan oo la socda hadda waa qofkii la socday oo Ibrahim ah sidaas ayaa lagu qaadaa mootadiisa lagu qaadaa sababta intaas oo baawur marayso isagana meeshuu iska taagan yahay macnaha wax gurmad iyo wax arxan iyo wax oo danqasho oo dhan uu leeyahay oo u sameynaya ma jirto mootadiisa ayaa lagu qaadaa sababtoo ah qofka xabadda markay ku dhacdo ee ka baxdo dhiigga qaybtan halbowlaha ayaa gudaha ugu shumayo sababtoo waa ka afgambi u dhacay marka inay maxkamadda si fiican u aragto xabaddan inay ujeedo ula kac ay tahay maragyada la hor keenay maxkamadda ee garsoorka u warmay waa askarigii shaqada kula qornaa eedeysanaha iyo saaxiibka marxuumka mootada la saarnaa wiilka la dilay la socdo hal mootaas la wada saaray waxaan maraynay meesha oo afisyooni iskoysk oo Xamar Jajab ka sokay markaan galnay wadadana ninka la yiraahdo waa la xaqay biyo iyo carabora la isku furo waa istaagana dhahay waa istaagnay markaan istaagnay yar asgari oo meesha joogay aan noo imaaday mootada furay hiri ka dhaxsay furaa markuu hiri ka dhaxsaday ninka la yiraahdo taag ma sameyn yar kale oo meesha joogo oday igaar oo gawaayishan oo meesha joogan iyo tagaan dhahnay ninkaas furay uu naga qaatay nooga qaad waayo waa idin kaga qaada markuu mootada furay ka siftay ninka la yiraahdo wiilka oo mootada waday furay markii la siiyay hore u dhaqaaji markuu hore u dhaqaaji ninkii wiilka halka ninka wax dilay waa daba kacay mootada maanan iga dhaqan ku dhaynuu dhahay diyaar wuxuu dheeqa igaartay mootada maanan dhiga garaash kana ka soo dhaqaha markuu saas ku dhahay wuxuu wallahi inaan kugu baxaa rabtaa yaa markuu dhahay ninka la yiraahdo wiilkii mootadii la marshadii hoos oo ka baxay wiilka wax dilay aab bixiya markuu bixiyay wiilka hadii saas loogu hanjabo waa ka cabsay anigana awlaanka horiyo lagu dhiiqay gaartay garaash meesha ku yaalo oo laamiga soo horjeedan galay
waa dhaqdhaqday wiilkana waa dhaqdhaqday yarka marxuumka oo ninka oo dhimahaayo mootada iyo tigay soo kala wareejiyay iyo soo noqoy ninkan u kayur mootada leeba marshadeedka leeba marshadeed markuu kan dhahay wuxuu dhahay iga tag inuu gacanto u duday asoon ku dhifano hal mar gacanta u duday markuu u duday gacantiisa soo isaga dhigay kuma dhifan wuxuu watay aqoonsi watay dhikaar u lahay jaabka uu gacanta galshay dhikaarka qorba soo bixin rabay ninkan waxa dilaayo gacanta qoran ku haysta bidaxa saanta u lahay xabadu u wadu ku dhiftay waa ku dhifay markuu xabada ku dhifay ninka la yiraahdo yar kale meesha ku jira garaash iidanka soo horjeeday ninka xabada waa ku dhacdo dhahay laamiga marka ninka la yiraahdo oo soo aad maagana hay soo kaano dhahay markuu ay soo kaan dhahay yarka markuu mootadii la sii dhacayso ninkii wax dilay waa iska tagay ونكون مركز شيء كسوق قبني بناك أنجيني كبعدها ماشى موتور لقى ساري تلي أساسا وحدان. محو كدودا اللي كان عمرنا لا ما شيء اسمه قاعدة عمرنا فراغ قاعدة محو حرم دودي سمحيتها وضحها. دودي سو والله تلي نكاس من قرر لواي وحيتا مشكل ماشى وحرد موتوينا مراي ماشى قارنا ومراين قارنا وعليهاين حبضوا اسكريداي والله تلي نكلينا مشيكر ماشى وجوجا نكلينا وحود هاي نكلينا ماشى وحرنتهاي موتوينك قارنا وين مراين قارنا وعليهاي نقول حتى ونك حبضوا وريداي لكن يروح وريداي مشيكر marka xabadaad dhaceen anagu jagboontiyan ka soo tagnay oo u dhaaqnay marka u dhaaqnay xabadaha joojaan oo dheer xabada aan ku dhacday waa daba kacay markaan daba kacay hooga soo qalqalayo qoriga omaan ku fureeyay marka waa ka cabsaday isla markii taliya saldhigan wacay gaariga booliiska 2 daqiiqo u yimid taliya saldhigan wacay dhinaca Liberia ku yimid soo qoriga booshkiis taliya saldhigan si uu wareejin meesha shaqada ka haysan yaa xabada riday meesha qofkay wax dilay dadka kala magacaabo soo dhacay meesha anaga aan ka shaqeeyay jagboontiga waa ka soo dhaaqnay aniga askartii dhinaca buundaa soo aan qoladaan ka shaqeeyay oo booliiska iyo gobolka banaadir laami ka shaqeeyay xabadaha marka aan soo aadnana la xab amal dhacay xabada saddexaad ninkan ku dhacday ninka dhaaco waay dhahay waa daba galay marka aan daba galay dhinacaan u baxay kabacdi isdajaan dhahay ninka dhaawac dad shacab ku soo yaacay dad shacab ku soo yaaceen aniga waa ninka waa ka soo laabtay telefoon la baahay taliya saldhigan wacay reportka hore ka siiyay bas report markaa hore ka siiyay gaari booliiska markaa aaday dhinaca Liberia ayuu ninkan ka yimid xabada ku dhuftay bas si oo gaariga oo ku yimid yaa waa ninka xabada wax ku dhuftay Ahmed hor muu taqaanay Ahmed ha saldhigan iska tirsan hore oo marka buuqa oo dhaxmaray ma arkaysid marka buuqa dhaxmaray ninka xabada ku dhacday asaga waxay isdhaheen u taqaana ما معناها باش بس شغال كسعتي أنا معناها تليفون أمهن صلي قال لي أسكت ترسلين شغلوا معناها أسكت شغل مركز الله إنه ما فرق شغلني سكوس كان كشغلين باش جلس كلام ورديها كي عكين هذا سؤال ودينا سام باركة سنة وجانك باريس الدنبية CID أيها محكمة دوغور بحية نتيجة بارشيد كيس اللي حري رجال كان وحنا نوصل بحضي إنه ديلك كسه وجستي أحملك وأنا مركي لبعض وفالدنبية نوعاً وكقب قادنايو توكدان توكدي كوريسي محكمة العدماء قلب كسيدان هوركيني أساقو كجرو فالدنبية وليبا اسبطورة أساقا لا شقيناي وبوليس كمد أها أيا قريجيسي انتلا ديلا قريجيسي لوسو إيدي إنو دايعي ولوميي أيا لوسو إيدي حباد دي مركز وكل من دون اسبطورة صوراني نيكي كوب بلاوا وحوا أحم بلاك كوحيجين كحراليا قودي عدماء قلب كسيدان xeraliye gaashaan la dhaxay Arab Yusuf Nuur Shabeel ayaa garsoorka ka codsaday in eedaysanaha lagu xukumo dil toogasho ah waana qisaasta marxuum Maxamed Xuseen Yusuf yani in naf inaad ilaaliso lagu soo baray haddana aad si ciyaar ku disho askari kale oo buliisa oo walaalka ah oo wuxuu ka galabsaday la arkin waa wax nasiib darro ah wali gudoomiye eedaysanaha waxaan dhihi karnaa wuxuu noqday caadayste hore ayuu maxkamadda u soo maro loo soo xiray kiiska loo soo xiray oo horentana fidno asaga bilowday ayaa isbitooro booliiska ku dhintay isbitooro booliiska oo lagu magacaabi jiray Arab ayaa ku dhintay fidno asaga ka kacday sidaas darteed mudane gudoomiye eedaysanaha subaxii hore saraakiishiisa ka shakiyeen qaabishinkiisa arkeen taliyihiisa saldhiga wuxuu ku amray inuu wacay maxaa kugu dhacay oo yiri
wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi waa qaadiriysanahay wuxuu yidhi haddaad qaadiriysan tahay shaqaha ii qabanin tag saldhiga loo diray wax yar markuu saldhiga joogay ayadoo cidna ku amrin uu laabtay waa baxay goobtii uu ku laabtay wuxuu xiriir la soo sameeyay taliyihii saldhiga wuxuu yidhi goobtaydii aan ku laabtay isla markiiba dilkaan uu geystay oo maxkamadda aad arkayseen sida uu u geystay dilka arxandarrada ah nin taagan oo wuxuu ka biidha arkin marka hore urarbaaxaya si ula jaasjaasa hal gacan uu ku dilaa xataa qorigna hal gacan uu ku haystaa haddaba sidaas darteed mudane guddoomiye waxaa la joogay markuu dilka geysanayo askari kale oo booliis ah oo hadda aan maxdarka keennay mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedaysanahan laguma tilmaami karaa inuu wax naxariisa leeyahay wuxuu sameeyey naxariis darra mudane guddoomiye subaxii oo dhan intuusan falka geysan ka hor wuxuu si xabado ayuu ridaya waddadan waa arkayseen waddo caadi ah oo gaadiidka marayaan oo horay gadaal u socdaan oo caadi ah oo waadax waaye xabado ayuu ridaa marba dhinacu u socdaa marba dhinacu u haadaa asaga dhan sida qaabka uu samaynaa wax macnaha oo suuraddii loogu tirigalay askari booliis ah iyo habdhaqankii loogu tirigalay ma aha qofka Soomaaliga haddii aad tiraahdo wadadan way xiran tahay oo askari labisan oo ku arka lagama yaabo inuu wax ficil dooda kaala sameeyo inuu ka laabto inuu meesha taagnaado ilaa laga furo ummadda Soomaaliyeed waa dad aad u jilicsan u hoggaansanaan karnaa mar kasta nidaamyada dawliga haddaba sidaas darteed waa dareemayseen ma xirneen wadada furan oo caadi ay ahayd balse waxaan dhihi karnaa ujeedo gaar ah oo u qastiyay subaxaas inuu dib geysto ayuu meesha u tagay eedaysanaha markuu dilka geystay gargaar ma sameeyay goobtu waa ka baxsaday waxaa xiriir la sameeyay taliyihii saldhiga oo ku yiri soo laaba hadama dib geysatay imaaw aniga sida ayaa lagu soo qabtay eedaysanaha mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedaysanaha si ay ugu waana qaataan kuwa nuuciisa oo kala ah oo ciidamada ku dhex jira oo suurad xumaynaya ciidamada qalabka sida in dhiig qof muwaadin ah naftiisa in la gooyaa oo saaka u soo shaqo tagtaa inaad qof naftiisa gooysaa wax sahlan ma ahan oo ama qof bini aadam uu ku fikiri kara nafta bini aadamka ilaahay ayaa karaameeyay qofka muslimka ah ilaahay qof muslim ah oo naftiisa la gooyaa waxay la mid tahay in adduunyadan oo dhan la duuduuba qofka muslimka naftiisa qiimaha ay leedahay ayaa intaas looga mataal dhigay mudane guddoomiye si aysan u dhicin in askari damba oo ciidamada ka tirsan uusan ugu dhiiranin inuu ku dheeldheela dhiigga bini aadamka in si aysan u dhicin in qof kasta wuxuu maskaxdiisa ka maaga inuusan gacantiisa ku qaadan inuusan ku fushanin eedaysanaha maxkamadda hor joogo waxaan ka codsanaynaa maxkamadda in ay ku ciqaabta dil toogasho ah oo ah qodobadii aan ku soo eedaynay 434 iyo aayadda suuratul baqara 178 iyo suuratul maa'ida 145 oo ah qisaastii marxuumkii askarigii uu dilay marxuum maxamed xuseen yuusuf oo ahaa askari booliisa waajibaadkiisa markaan taariikh nololeedkiisa aan baarnina nin oo habdhaqan fiican ciidanka booliiska ku dhaxlahay ah mudane guddoomiye maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in ay eedaysanaha maxkamadda hor joogo dil toogasho ku xukunta sida ugu dhaqsiyaha badan waliba lagu fuliyo tiirka loo geeyo maxkamaddu waa mahadsantahay qareenka eedaysanaha abukaati cabdiraxmaan siidow xuseen oo doodiisa ay u badneed ku taagnaashiyaha in dilkan uusan ahayn kas ayaa codsaday in muwakkilkiisa lagu xukumo bixinta magta marxuumka mudane guddoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh eedaysanaha maxkamadda hortaagan waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 434 waa qodob ciqaabtiisa aad ay u adag tahay waa qodobka ugu weyn ee qof bini aadan lagu soo eedeeyo waay qodobkaasna ma aha qodob oo mustaqil ah oo qofka lagu soo eedeeyo macnaha hore loo qaadan karo ma aha maxaa yeelay waxaan ognahay qodobkaas wuxuu leeyahay arkaan wuxuu kaloo leeyahay shuruudo wuxuu leeyahay canaasiir oo qodobkaas lagu dhisayo hadduu iqraarkiisa kama mid aha wuxuu dhahay xabadda waa iga fakatay qiraalkiisana waxaa ku qornaa xabaddaas inay fakatay macnaheeda ma aha xabadda waa iga fakatay kasi imaaga u dili ma aha
mudane gudoomiye qodobkan 434 shareecaduna way qeexay qaanuunkuna waa qeexaa dilka sidiisa anwaacyo iyo noocyaalo badan ayuu leeyahay noocyaalkiisana waxaa ka mid ah dil kas ah iyo dil oo maxaa la dhahaa khada ah iyo dil oo shibhul camdi la yiraahdo saddexdaas dil waxaa kala saarayo shuruudahaas markii la helo oo shuruudahaas la buuxiyo markaas ayuu noqon karaa dilkaas dil kas ah amba uu noqon karaa dil oo khada ah amba uu noqon karaa dil oo shibhul camdi ah camdiga shuruudiisa waxaa ka mid ah qasdul ficl in la helo qofku inuu ficilkii asiga oo la mubaasharo oo ficilkii asiga u qasdo qasad in la helo oo muwakilkayga oo maxkamadda hortaagan iyo marxuumka dhintay wax dagaal ah hore ka dhaxeeyay aqoon hore isku lahaayeen haba yaraatay horta ma jirto waxa meesha ka baxay horta meesha waxa laga helay qasdul ficl waa jira ficilkiina kan waa sameeyay xabadii asiga riday asana qiraalka ah qasdu shakhsi ma jiro ninkii asiga wax dagaalo ka dhaxeeyay iyo taagtaag kale ma jirin maxaa la dhahaa asiga iraado iyo doonisna ma jirin cadaabad oo labadooda ka dhaxaysana ma jirin intaas haddii la waayo mudane gudoomiye camdi meesha waa ka dhammaanaa waxaa la aadaa shibhul camdi iyo khada la aadaa meeshan waxaa ka cad muwakilkaygan oo qiraal ku yahay in eedaysanaha dhintay oo aan aragnay inuu asiga gacantiisa ku baxay laakiin bilaa qasdin inuu ku dhintay haddii annaga dadkii dhibka aan u geysan aan u tagnay nootaay aan hor tagnay oo heshiis aan kala qoranay maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa heshiiskeen inay qaadato muwakilkaygana qof bini aadam wax walbaa ka dhaca khada ka dhaca ayuu ahaa khaladkaasna maxaa la dhahay asiga ciqaabtii yarow qaado karo amba xarag ah xataa in laga dhaafo shaqadiisana dib loo celiyo maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay maxkamadda maxaa ka codsay maxkamadda waxaan ka codsaa inaa xorriyaddayda dib u helo wadatashi dheer oo ay yeesheen garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa kadib dabre booliiska Axmed Cabdi Jimcaale Black ku xukumay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum ex booliiska Maxamed Xuseen Yuusuf sidoo warbaahinta uu sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Cabdi Fataax Khiyaar warbaahinta qaranka Muqdisho.